hore ayaa u tabinay rag ka mid ah xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble in ay ka shaqeynayaan boobka kuraasta golaha beelaha banaadiriga ah sidoo kale waxay hore uga soo shaqeeyeen in gobolada waqooyi kuraastooda ay hore uga soo shaqeeyeen inay boobaan haatadan waxay ku dhagayeen kuraasta qaar ay doonayaan inay sorsaag weyn ay ku suubiyaan si loo helo ama dadka qaar loo dhaafsiyo kuraasta qaar waxa cod sir ah laga helay in nin kamid ah in xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble waliba qaasatan gacanyaraha ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble ayaa cod sir ah laga helay codkani ayaan rabnaa in halkan kugu soo dayno ama aan ku muujino ama aan ku dhageysino waxaan kala bixi doonaa qodobo muhiim ah oo aan halkan rabo inaan kugu soo jeediyo ama aan falanqeyno haduu aalid insha Allah intaan guda galina fiidiyogeena waxaan si gaar ah idinkaga codsanayaa inaad si share gareysaan oo gaarsiisaan walaalihiin qaaliga fiidiyogan haduu ku soo gaarana aad la gareyso waxaa cod sir ah laga soo duubay Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adaala ayaa cod sir ah laga soo duubay isagoo ka shaqeynayo boobka kuraasta beelaha banaadiriga hore raggaani waxay uga soo shaqeeyeen inay boobaan kuraasta gobolada waqooyi iyagoo waliba xataa isku dayay kuraasta qaar inay ku suubiyaan isurstaag si ay u helaan ragga iyaga ay doonayaan balse raggii la qarinayay maanta banaanka ayaa si cad loo keenay intaas oo dhanba halkan ayaad kaga boga doontaa yaana ku dheeraanin aan idin sidaayo codka ama codka sirta ay laga soo duubay wasiir ku xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adaala dhageysi aboon wasiir يقول سعيد وكوفي عنها ولا وزير ويحان كبلا من المحل وبحي ولا لا ويحان كبلا عندي كبحذي اللي بان شلق ويدي شن حبنود كلها أشراف أو كل أشراف أو ننكي أو اللي بان شلق للسعودية ما أو عندها وين شن قفول أشراف وكأنه شن تاس قفال لقرب مدة هذا بوقة ده لسواي عبدوغي وزير مدابة تايم بروبلام كلا حتى تان قدرنا وتكن هنوضن بي كم بروبلام كان تايم بس ما مال كم وقت ماله أنا كل ليباني سيقول الليباني قال على روحك كاس السنة ما غادي وشنت بفوق شيء الليبان أنا الليبان ما أوجي كاس أنا بحاول ديسان الليبان شرق يا إيجا كورة خلانا ما بقادنه يساعديه horta hadda waxaan ka rabaa wasiir hal xanuun ha jiro waxaan ku dhahay kursiga ah ku qortay odagii habeenka ku qor aan ku dhahay ee camuudiga ah Axmed Iikar ahay kuma qornaan ku dhooya ifaan horta ko Abu Axmed Iikar waxa ka daran kursi kala oo soo ahaasi aan ku qortay ka haro waa la sii karaa liibashaashi oo qoran maxaa keen tusika imaqale liibashaashi oday uu leeyahay أكأن معروف يا أبتي مثل ده هذا فارس حتى كبحنا نايتوس. أين هذا كان إذا كده حقله. أين عبد الرحمن يوسف Al-Adaala يصير كله تليبان شلوخ أو لبدو حق عن يراه رئيس محمد حسين Roble وهي دمان تو كشقيان بوب ككراس سقار واللي بقاسته مركان كودل استاجو والدلالين تحت السياسة ده. أين وحي الدلالين ويهين wadamashi sheeye oo doonayo ragga iyaga ee wataan inay madaxda ka dhigtaan sidoo kale rag kamid ah siyaasiyiinta oo lacag badan ku bixinayo kursiga muranka badan dhaliyay ee beelaha banaadiriga waxa kamid ah kursiga muranka ugu weyn lagu hayo waa ninka lagu magacaabo Cabdikariin Xuseen Guuleed xaaskiisa ayaa waxa la doonayaa in kursi loo boobo ragga kursiga boobayo waa ninkan in adeerka ay yihiin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Adaala ninkan iyo Liibaan Shulukh labadooda waxay ka wada shaqeeyaan boobka kuraasta beelaha banaadiriga maanta ugu dambeysay rag kamid ah guddigii loo xil saaray inay soo xaliyaan ayaa sidoo kale sheegay in kursi inuu ka baxay maadaama ay arkeen cadaadis kaga imaanayo dhankan iyo xafiiska ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble sidoo sheegay ninka lagu magacaabo Umar wuxuu ku sheegay hadalkiisa kamid ahay in xafiiska ra'iisul wasaare Roble amara badan laga soo bixinayo laga maamulayo kuraasta beelaha banaadiriga aanu ku sii socono codkeena فارس ما بقى محمد شكر انت قف لو قرا ادي dadka aad soo qorataa loo qoray dadka cabdo dadkiisa aaw taas hadda ana ma ana tan basma oo inaysa iimaade في صاحبه في الوحن كوشيغا صاحبه anaga xalo dhan la haystay ninkii reer shaqo markay shalay hadleen risaari xalo waa
yeeray wuxuu dhahay kursiga maqsuumi loo xirayna looma xiri karo labadii kursi oo gabdhaha ahaana waa inay gabdhaha ahaadaan fiiri horay gabdhaha u ahaa ma fahamta horta doodda isku jira hadda adinkii buuq kale nagu soo furteen oo dadkii dacwadooda taagan tahay iyo cumar oo dadka meesha ku qoran oo liibaanshaasha hala bixiyo odaga ay sheegaysidna hala saxo haddii la sixi waayo wixii isku qasmaana aniga telefonaygu gacantayda kuma jirto horta alcadaala waaye waa maqla laakiin hal shay aan kuu sheegaa niyow waxaan la yaabanahay tan liibaanshaasha odaygiis hala bixiye odaygii camuudiga ahaa koo dheh iyo ninkii bulshada rayidka qorta hala saxbo kanna waa la saxaya dhegeyso dhayo waa la saxaynaa cabdo waa wixii cabdo dadkiisa qoraal la qoray haddii la qori waayo risaaraha wuxuu dhahay kuraastas banaadiriga shanay ahaayeen labaa gabdha ahayd labadii gabdhoodna la soo celiyo kursiga maqsuumina hala furo ma fahanti midda kale odayaashan oo aan risaari ogolaan oo aan la dhihin odayaashii saxda ahayd waayo uusan risaari gadaal kas marka ugu dambaysa asuu maadaama uu odayaasha mas-uulka yahay uusan sheegin guddigu sidoodaba labada bulshada reedka bisay xaq u leeyihiin odayaasha cidda laga raba inay soo gudbiso oo loo gudbinayo risaaraha waa ra-iisul wasaaraha de dowlad goboleedyada oo dhan fiida dowlad goboleedyada oo dhan odayaasha waxaa ka mas-uula dowladdaa sheegta odayaasha saxda laakiin guddigu waxay xaq u leeyihiin labada bulshada reedka hadda waa yahay midaan oo axmed iikar oo gacantaada ku qortay maxaa loo soo gudbin waay idinkoo nala tashanaaba iska daabacdeen midinka xale waxaa nagala tashada annaga maxalaysan sacdiye isan joogin hadda ku jir qadka haddaysan idinla tashan ku jir nalama tashan joog ku jir hal mid aan idiin sheegayaa inta ka dambeyso waa xoogaa hadalkiyaa sii dheeraanaya laakiinse muhiimadda ugu horeysa waxay tahay kuraasta qaar xafiiska ra-iisul wasaare Roble sidaad aragtaan oo cad aan daboolnayn waxaa laga soo maamulaya xafiiska ra-iisul wasaaraha raggani waxay isku dayeen kuraasta qaar in loo xiro rag gaar ah sidaad ku arkayseen codka ama ku maqlayseen kursi ayaa waxaa loo xirayaa nin kursiga kaleetana waxaa lala doonayaa gabadha halkaasi waxaa ka cad rag ka mid ah xafiiska ra-iisul wasaaraha inay ka shaqeynayaan boobka kuraasta golaha shacabka sidoo kaleeto maxaa daba dhigay beelaha banaadiriga maxaana u xil saaray ama ujeedkoodana muxuu yahay sababtoo ah beelaha banaadiriga iyaga ayaa gooni u leh kuraastaasi cabashadu ka soo gaartay kuraastaasi ama laga soo muujinayay ragga qaar markay habaartamayeen dheedheelkuma aysan habaartamayn odayaasha sida tan ayaa ka xal ah ragga qaarna ay ku boobayaan kuraasta taasi xalna ma keento xalna uma keento doorashada hadda socotee boobka doorashada ayay sii badanaysaa sidee ayaa u aragtaa qaabkani iyo codadkani ama codka laga helay wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf caladaala inuu ka shaqeynayo boobka kuraasta golaha shacabka ah fikirkaaga hoos nagula wadaag fideogana sii shargaray oo la wadaaga saaxiibadana kaleeto waad ku mahadsantihiin daawashadiin qaaliga ah